Shirkadda Camil oo ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa iyana maanta waxa ay gaarsiisay deeq lacageed dadkii ku soo waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Axis Control Afgooye qaraxii ka dhacay oo dad badan saameeyay. Maamulka shirkadda Camil oo ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada Muqdisho gaarsiiyayna deeq lacageed dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii Axis Control Afgooye ka dhacay ayaa sheegay in ay sii joogteyn doonaan garab istaagga dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu gaartay, iyagoo sheegay inaysan kaliya ka fikiraynin in lacag abuuraan ee ay u gurmanayaan dadka Soomaaliyeed. Maamulkeedu waxa ay caddeeyeen in ay ka shaqayn doonaan si kasta oo lagu garab istaagayo dadkan, iyagoo sheegay inay dowladda kala shaqayn doonaan sidii loogu gurman lahaa dadkaas ay waxyeeladu gaartay, waxaana ay tilmaameen in subax kasta si joogto ah ay uga warqabi doonaan dadka ku nool magaalada Muqdisho ee dhaawacyada qaba, isla markaana ay saameeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho Axis Control Afgooye oo dad badan ay ku dhinteen. Camil mas'uuliyiinteedu waxa ay sheegeen in haddii loo baahdo in caafimaad dibadda dadkan loo qaado ay qayb ka qaadan doonaan, taasna ay kaga gol leeyihiin sida ay markasta diyaar ugu yihiin in ay dadka garab istaagaan waxyeeladu gaartay. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.